السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta kelimadeenna waxay ku saabsan tahay waxa la yidhaahdaa alwucuud alilaahiya, ballanqaadka alle ee alle uusan marra ka bixin. ma rabtaa inaad heshid ballanqaadyo alle uu leeyahay, qofkii saan sameeya saan baan u samaynayaa, waa dhiil, waa heshiis waay, saan samee saan baan ku samaynayaa. waxaan sheegayaa 6 arrimood oo ballanqaad alle uu dul saaran yahay. arrinka koowaad waxa weeye alle wuxuu ballan qaaday qofkii asaga barya inuu ka aqbalayo. udcuunii astajib lakum, barya iweydiista waan idin siinayaa. ballan waayo, ma allah ballanta ka baxa? subxaan allah, maya. udcuunii astajib lakum, ibarya waan idin siinayaa. midda labaad waxa weeye haddaad allah xusto ood sheegto oo aad magaciisa ku wardido, alla wuu ku sheegayaa, adigana waa sharaftay, wuu ku sharfay. fadkuruunii adkurkum, isheega waan idin sheegayaa, ixusa waan idin xusayaa. dadka maanta dhan adduunka sheega, ee ehelkooda sheega, ee qaraabada sheega, ee qabiilka ku faana, maya, alla sheeg oo xus, wuu ku xusayaa, wuu ku sheegayaa. maasha allah, subxaan allah. qodobka saddexaad, waxa ilaahay ku siiyey oo nicmada haddaad ku shukrido, alla wuu ku badinayaa. alla wuxuu la in shakartum la aziidannakum, haddaad igu shukrisaan waan idiin badinayaa. carruur baad haysataa, maal baad haysataa, caafimaad baad haysataa, diin baad haysataa, waad ku shukriday, waad uga mahadcelisay. mahadcelintuna waxaa weeye 3 arrimood: inaad allihii ku nicmeeyey sheegto, allah isiiye, allah isiiye, allah ii taray, iyo inaad nicmadii alla ku siiyey aad u isticmaasho meel wanaagsan oo xalaal ah, iyo inaadan meel xun ku bixinin. 3daas weeye. fadkuruunii adkurkum, alla wuxuu leeyahay la in shakartum la aziidannakum, udcuunii astajib lakum. ballanqaadka afraad, qof ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya oo astakfirullah leh, alle ma ciqaabo, dhibaatana kuma rido. wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun, alle ma cadaabo ayagoo dembi dhaaf alla weydiisanaya. waa xaqiiqo weeye. ma rabtaa alle inuusan ku cadaabin oo ku ciqaabin oo meel xun ku dhigin oo dhibaato kugu keenin, dembi dhaafka badi. astakfirullah wa atuubu ilayhi dheh. astakfirullah wa atuubu ilayh cadada khalqi wa ridaa nafsi wa ziinata carshi wa midaada kalimaatih. ku celceli. ballanqaadka shanaad, qofka raba inuu adduunyo helo, aakhiraha raadiyo. alla wuxuu leeyahay man kaana yuriidu thawaaba dunya fa cinda allahi thawaabu dunya waalaakhira. qofkii raadinaya adduun, lacag baad rabtaa, adduunyaad raadinaysaa, war adduunka iyo aakhiraba allah haya. alla xaggiisa aad, diinta ku mashquul, diinta ka daba shaqee, diinta ka daba orod, diinta shaqo ka dhigo. alla diintiina wuu ku siin, adduunkiina wuu ku siin. waa ballanqaad waay. kan ugu dambeeya, qofkii raba sacaado inuu ku noolaado, inuu ambiyada laynka maalinta qiyaamo la galo, inuu shuhadada safkooda istaago, ilaahay ballan buu ku xiray. waa maxay? waman yutic illaaha warasuulahu faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiin waasidiiqiin washuhadaa wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa dalika alfadlu min allah. qofkii alle iyo rasuulkiisa ateeca wuxuu la jiraa kuwa alle u nicmeeyey, nebiyada, shuhadada, sidiiqiinta, saalixiinta, kuwa lala rafiiqana kuwaasaa ugu wanaagsanaaday. xaggee laga helaa sacaadada iyo jannada iyo wanaagga iyo booska wanaagsan? inaad alle iyo rasuulkiisa ateecdo. 6dan ballanqaad ilaali, alla wuu ku ilaalinayaa. ballantana alla kama baxa, aduu ha ka bixin. 1 ibarya waan idinka ajiibayaa. 2 ixusa waan idin xusayaa. 3 igu shukriya waan idiin badinayaa. 4 idinma cadaabayo idinka oo istikfaar samaynaya. 5 qofkii raba inuu helo adduunyo, aakhiraha raadiyo, adduun iyo aakhiraba allah hayee. 6 qofkii raba sacaado, walwalla'aan, deganaan, adduun iyo janno aakhira in laysku daro, sacaadatu daarayn baa la yidhahdaa. rasuulka alle iyo rasuulka ha ateeco. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.